السلام عليكم أصحاب تقالية وين السلام من channel قدامنا يسمى شبيلك مذوية نقول عليها أصحابتها ما أنت واحد يجوني من صاحبنا هاي سجى سكين بريدونا وني ما بريدونا إن شاء الله بالله كريم سودو أحمد وين السلامي أصحابتها كحرن channelka شبيلك مذو لما أنت وين السلامي waxay rajeenayaa khayr anigu odayga hore lama soo fadhiisan jirin maanta igu horeysa marka waxaan rajeenayaa inaad isoo dhaweysaan sidoo kale waan idin salaamayaa aad baan leeyahay soo dhawaad bal maanta ma anuna asxaabtaan oo magacooda ku hadlaya salaanta aan ka qaadnay inaan ku soo dhaweynin aad baan maasantahay maanta waxaan yahay asxaabta qaaliga aniga saaxiibkeen barnaamij baan insha Allah riwaayad baan falanqeyn doonaa ama ka wada doonaa wada eegi doonaa waxay ka hadlayso fariintay ka hadlayso the reaction wal yiri dilay lagse falanqeyn ma kaga ficnaa reaction iyo falanqeyn waslaalkii kulli ha waa afka qalaad beerash ku tahay waxaan u maleynayaa Soomaali waxa ku noqonaysa on de falanqeyn waxaan iyo wada hadal u baahday laga ximo la falanqeynayo meelaha waxaan sax ka yihiin halka ka qaldan tahay iyo fariintiisa waxaas marka riwaayad kale ma aha asxaabta qaaliga hadda inuu gudbo barnaamijkeena waxa weeye wada taqaanaan oo dhaho sayidka barakaysan sayidka iyo ninkaas waa nin aad u horeeyo ma garanaysaa ninkaas baa gelin wuxuu u badiyay waxaan madayn inta badan waaqica ka hadlay qaybaha sheekh Idris Raamaale iyo qaybta maanta oo balay hadda leeyna horta waa qayb badan laakiin qayb kamid ah soo qaadan doonaa qaybtaas qayb kale ma aha oo qaybtu ka hadlay xuquuqda dumarka xogaa baan ka yara daawaday marka ninkaas horta moogta inta badan mowduucyo xasaasi ah ayuu ka hadlaa صح يا صح waliba xogaa hadlaa siiro aad moodo xogaa mijaajilana aad moodo xikmad yarana ku jirto dadkuna fahmayaan ma fahantay ninkaas waa nin sanaayo laakiin way wada bilaaban doonaa insha Allah billahi kareem and sambu dhici doona reaction kuna insha Allah تعبنا دنبيا حبس هذا ما دش غير ما يكني ان ارتاح بدنا سنتين شرح حفلته يقول مرتي قاطين اذا عاد بدنا كحد معايو saddex qodob oo ku soo koobaya warka gabigeeda qodob toddobaad kan horta saddexda qodob ma taqaana waxa leeyahay bal sidoo soo gabagabeeyay saddexda qodob inka dadka madax marka hadlayaan markay dhahan laba qodob muhiim ah ka hadlaya saacad bay hadlaan iyo horta waa ila aragtaan mareenayo laakiin waxa la yiraahdo moogtahay sidoo ma garanaysaa qofka hadda tiraado shan qodob baan ka hadlay dadku way si caajiseen ma garanaysaa sax inuu wasdo oo dumarka iyo waxani waa wax hay'ada iyo dad inoo keeneen oo dumarka xaqiiqadooda lagu khalkhal gelinayo dadka xuquuqdana la doonayo dumarkooda haddaad aragtaan sawiro dhaqma wallahi midan xuquuq ka sheekaysan 1882 igla dumarka wadooyinka lagu iibinay wax $3 ka yar bal kala siisanay wax jira igla samaa dadorta niyo sideedo ma garanaysaa timka joogtay dumarkiina si loola dhaqmayo kuwa si loola dhaqmo ka fiican dumarka hadda joogo way wadamada reer galbeedka dumarkooda waqtiga xaadirka ha xuquuqul insaan ahaan marka laga hadlayo taniga waxay ila tahay dumarka Soomaaliyeed ma garanaysaa Soomaalidu kulliga waad garanaysaa iyo dumarka la adu ilaahay ku roon yahay horta sida dhaqanka saxda ah ma garanaysaa ma garanayay ma sida dhaqanka saxda ah gabdhaha hadii korkeeda la taabta wala hore xal iska qaadi jiray gabdhaha dad ma taqaanay gacanta soo taabtay inuu raali ka ahayn sax waxa jiray meelaha konton halaad iyo wal halaad iyo geel baa lagu kala qaadan jiray sax waxa la xaal amsinay ku inuu xuquuq fiican yihiin wayba ku xuquuq badan yihiin oo aad dumarkiina way ku xuquuq badan yihiin oo sax meeshan iyada meeshan dumarku dubaysitaan oo waxaan ku oray qacad beest waxaan ku waa nicha ma fahanto waa bir wala tragal wadaayo train bay wadaayo ma fahanto waa iyadii baa wadan nin oo waxaan ku oray oo nin wax badhaan lama ku arkan joogo dumar lama oran karo waa rag marka waxaan isku barbardhigi karin ba isku qaab ma talyaaniga يعني ninka gacantiisa ku hayay inay gabadhiisu noolaatay inay dhimato labadaba sida xayawaanka loo dhaqmi Israa'iil waqtiyadii hore يعني dumarku waxay hayeen xasharaad oo kale maalintii 10 goor baa la furi jiray si biyaha ay ka fudud furitaan يعني kitaabkooda bayba taas nool ma taas ku noolaayeen si inay xuquuqul insaan ba Soomaaliyeed ka maqan inuu noloshan haysan inuu ognaay dumarkiina nolosha fuu loo qadariyo ilaa maamus oo show inaad raadhay dumarkan la xuquuq baan naga maqnay xuquuq ma raadinayna waa runtada xuquuq baa ka maqnay marba hadii lagu leeyahay maanta 10 jeer baa la furi jiray marba hadii lagu leeyahay wadooyinka lagu iibin jiray deena waa runtooda marka hore kuwaas xuquuq ma haysanin
dee markaa inaga xuquuqda inaga maqanay nolosha doonayaan maxay tahay dee inaga horta waxaan la yaabanaya dumarka Soomaaliyeed ee iyagoo wax walba haysta wadana lagu iibinahayn maalintiina 10 jeer la furahayn weligoodna soo sharfnaayo dee weligoodba guriga marna guriga aabaha sharaf ku joogtay marna gabar la dhaqanayo reero ma taqaanay sharaf ku joogtay meeshay martana dee dumarku waxaa la oran jiray dee dumarku waxay ku jiraan maatada ku jiraan dee haddii dagaal dhacdo haddii wax walba dhacdo dagaal dhaco haddii la qaxo haddii colaad dhacdo dee dumarka lama taaban jirin sax hadda ma fahantay sax dee imka xataa imkada laftigeeda dee lama taabtaba waqtigan iyo waqtiga hore wuu isku mid marka kuwan anigu waan u garaabayaa imka dee dumarkan reer galbeedka markii la xuquuq baa naga maqan dee waa loo garaabayaa waa kuwa dee waa dee saasay ahaayeenba dee xayawaanka sida xayawaanka loo dhaqmi jira sax hadda ma fahantay sax balse intuu kuwan dubanka qaldan loo tumay baan ka hadlayaan leedaha xuquuq waa haystaan halka waxaa ku qoran gabadha uurka markay qaato waa nacdal iyo cadho ilaahay geedkii aadamsiisaba lagaga jarayaaba ku qoran kitaabkooda dee horta markaa qodobka soo qodob diiniya bibilka ku qoran tahay gabadhu markay uur qaato nacdal baa ku taala ayaa ku qoran may dee inaad markaa waa in loo garaabo markaa dumarkan reer galbeedka waa in loo garaabo waxaan waa runo suxun baa loola dhaqmay dee نورتانو حتى وقت حاضر كنا جوا إني تباركين كحقوق بني من المسنة. جنرال الإسلام جاي ملها تروكي والجنرال نبان طاعون. وإلى هي كلية سبحانه وتعالى تباركين والشرف أيه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه إبلا هي وركي وشيء كجمو هرم إلهي. يحسير رعي نبتي إيداد كلا مرت. كي روح حكي أنا مخش جاب الرواية بل رواية رواية كي رواية هاي. برسول شيء أيضا القرآن كله سقطه دليلها تورت وارنا برتو نيكن واسون إنسان كل شيء ونيكون صاحب عقلية ما قرن صح وايد ضد كذا هذا صح marka waxay fahmayaan baa lagu hadlaa dadku inta badan diinta wikuwaan tuwaan ma garanaysa sax qofka markaad xagga diinta ka marto sax ee tiraado aayad quraan oo soo delisho axaadiis soo delishato qofkii uu qabsoomay ama waxay weydiinayaan ma garanaysa sax waxay lacag diin buu adeegsanayaa xoogaa yaroo ma taqaanay majaajila yaryar ma fahanday marka dadka qofkan toos buu caamidi ma garanaysa Soomaaliya dadka noocay u badnaayeen ma garanaysa toos buu ayuu qofkii wax yaqaanay iyo qofkii wax conference gaaraysa toos buu gaaraysa wax walba waad qabateen wasiiraad noqoteen madaxbaad noqoteen kubadaad ciyaartaan maca musarcaan la ciyaartaan yaa Stephen McMahon aabbaheed ma fayray isku celisay ba ka badisa مساعدة حتى نلعب ترى بيت برس كويس. مسألة مثلا عرفت يا ريال مثلا نوع عنده مدة شيء كان ضمن مركز ولا شيء. ما نوع أول واحد الناس يقول لي بيصير بنطقتين. الله مسألة على محمد كبدنا نلعب عيارتان. مركز طمر كي نوع أول بولا هذا تيجي كبدة عيار سي مثلا عيار كبدها ولا هذا ومثلا كاسو. وكوري هوس بومر. وسكول ده نوع ذيك الدونية ما قرنا ساعة طمر خلاص والله هذا يقول بس يدي تسالي وسقطي فاهمسي. maanta nin kasta xarreeyo kuul wastaad xamaal sidii waxa wada xarreeyeen waa dumar ragoo dhan ma taqaana waxaan rag dumar ay wada soo horta su'aal wallahi marka soo sheegay wuxuu wastaadkii soo wadaadkii iyo maxay noocyadii moogtay nin walba shaqooyinkii kala duwanaa ba ka soo sheekay ma waxaas oo shaqo rag ka shaqeeya ayo shaqeeyaan ninkan xaas lahayn wuxuu urursanaya xoolaha ku guursan lahaa صح ما فهمت صح وتوا كانوا حوالي يورونين قفت مرمى يورونين هذا صح صح كحاس كالحاس يعرض بوصو وشغالين يا مقرن صح كان يكون ورمتيسه طمركي رجع بقى إلهي ودير ويلي ودي اللي قرب شوقا ولا اللي قرب شوقا ما سنين كل ده قف كان ما تقنع ما حافظه وشغالين يا والدكي يهودي هبلودي أما هو شغالين يا حاسكيسي أما أنت شغالين أدري حد هو حاسكيسي كم تعال يا حرتس كم تعال haddaan inta u shaqeynaa dawana xoolo urursanayo berit wala wixii ma taqaana reer ku dhisan laha sax ayuu meel dhiganaya u shaqeynaya dayo urdayaan qof dumar buu shaqeynaya ma taqaana wuxuu sameeyay imika kelmadun soo wada dhigaysa wallahi nidan xuquuq sheekaysan waxaan ku jirnaa hadaad garanaysan wali farbaan dubbeedin kaga dhacin oo salaam baan idin la siiban ama moo fiidan duhur shidin horta waa runo hawlahaasi waa hawlo dhib badan sax ma fahantay sax horta qofkii soo maray un baa garanaya sax labi iyo tobanka duhurnimo ama waxaan ku riday duhurkii markii ma taqaanay qorraxdu tahay jidkii wadankan waa la garanaya tanka taageentay magaranaysa ee waxaan ku wari wixii soo dhaqaaqaba dharaaya magaranaysa gudka ma taqaanay ugu guri xaabada saa ma taqaanay u ololaya sax
ayaa lagu oranayaa ku gurbaashii rudhidii la moofinayay iyo wixii mataqaana mafdalkiin lagu oranaya geli صح saa markaad u furtaa naar baa saa ku leebisay moogtay holac baa saa ku qaaday mafahan inta badan dadka moofin ka shaqeeya wadad madmadow inaad arkin mafahan way holacaasaa liifiya qiiqaasa كلهم بدون ما فك وش اللي ما انت ضمن معي كبتوا يعني اظن يكون هذا المفروض القدر وسيم كانت هذا كان عرف بتكونوا شيء بلا صومالية ضو الشرفة اسبغرة حصل بيدك على مرة يعني lix kuwa din baan gacanteedii kaga fakan ama jiinta horan idinkiina lagalin difaaca dalka ama jeeg baan idinku bixino gaadaan idinku fadhiisan wallahi jeeg baa idinku baxsan biyuuro gaadhi baa idinku fadhiisan ugu dambeey ku soo gabagabay saddex qodob buu ka hadlay Soomaa laba qodob buu ka hadlay kii saddexaad uu ka sheekaysan qodobka ugu muhiimsan ee kaga baxayaan wuxuu yahay xafladda maanta wassalaamu calaykum والسلام عليكم kii qodobkii saddexaad wassalaamu calaykum di hadalkii dhan buu soo gaabiyay saddexda qodob ee akhrin lahaayeen dadka kala magaranaysa labada saacadood horta nin naga soo dhigahno iyago والسلام عليكم wassalaamu calaykum marka halka odaygu inoo gabaday ma garanaysaa adiguna maxaad leedahay iyaga oo ku soo eegay aan wadma ma galnay istaasi waxaan ku soo gabagabeynaa niyow kulanti dambe waxay saladee subscribe iyo like iyo share tana ilaawi mariya daadiyade hadda halka soo gaadhay aad baad mahadsan tahay السلام عليكم ورحمة الله